السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا aqoonsan online academy casharka ka tirsan casharinii taxanaha ee aan ugu talagalay inaad ku horumariso ama aad kor ugu qaado luqadda Ingiriisiga dhanka hadalka casharkeena maanta waxaan ku arki doonaa ama waxaan ku qaadan doonaa 10 ways to ask how someone is toban qaab oo aad u weydiin karto qofka sida uu yahay ama qofka u wareysan karto ama xaaladiisa uga wareysan karto aad u weydiin karto sidee tahay iska waran marka qofka isku timaadaan ama aad kulataan qofkii waayahay aan hore u bilaabano casharkan aan hore isaga galo tobanka qaabkii noogu horeeya waxa weeye inaad ku taado qofka how are you iska waran see tahay qofka aad weydiin karto oo aad xaaladiisa kaga wareysan karto aad isticmaali kartaa marka aad hadlayso qofkii aad weydiinayso how is it going say u soconaysa xaaladdu si hawlu kugu soconaya hawlu si ku yihiin iyo waran marka doonsan luqadda qofka Ingiriisiga aad qofka ku weydiiso luqadda Ingiriisiga teena saddexaad baynu geli how you doing isticmaalka iyadoo la soo gaabiyay oo saad arkayso aad qaabka u dhigi karto marka sida casharada horeba ku soo aragnay marka waxa jira marka qofka la hadlaso inaad qaab formal isticmaasho ama qaab informal isticmaasho qofkii saaxiibka ahaa ama wadada iska hortimaadeen ama walaalaha haydeen inaad qaab informal iska yar caadiyo la iskala hadli karto ama qofkii muhiimka ahaa ee waalidkaaga kale macallinkaaga qofkii booska ku ahaa aad shaqaalaha wahayd qofka todoona ku wareysanayo kale wareysiga ka qaaday qofka dadka noocaas oo kale aad si formal oo caadi oo ixtiraam ku jiro aad u wareysato ama aad wax weydiiso ka saddexaad aan arki doonaa waxa weeye how are things xaaladdu waa sidee ashyaadu waa sidee iga waran yani waxa weeye ka waran xaaladaada iga waran tashanaad haddaynu galo how's life noloshu waa sidee waa xaaladda iga warrano yani waa qofka wareysanaysa xaaladiisa umad ka wareysanaysa adigoo different phrases isticmaalaya oo markaad hadlayso qofka aad la hadlayso waxaa sidoo kale aad oran kartaa how have you been sidee ahayd beriyahan qofkii ismaydan arag waad kala muddad kala yara maqnaydeen waa isku soo baxdeen ama waa si degdeg ah u kulanteen how have you been see ahayd ka waran bal beriyahan ismaydan arag xaaladda aad u sahayd maxaa inoo kala dambeeyey waxaa sidoo kale oran kartaa how's your family qoyskaagu waa iskee iga waran xaafadii iyo dadkii iga waran ayaad oran kartaa marka qofkii aad doonaysa inaad xaaladiisa wareysato dee qoyskiisina waa ku muhiim sidoo kale inaad wareysato marka waad isticmaali kartaa taan tisdeedaadaynu galo waxaad ku oran kartaa whatsapp maxaa jira ka waran see tahay isticmaali kartaa iyadana marka qofkii la hadlaysa luqadda Ingiriiska aad kula hadlayso teena sagaalaha haddaynu galo what's new ha cusub inoo kala dambeeyay kugu soo kordhay waxaa sidoo kale weydiin kartaa qofka ka oran kartaa how have you been up to lately ayaad ku oran kartaa qofkii iyaduna waa nooc ka mid ah qaabka aad dadka ama qofka aad u weydiin karto xaaladiisa ee isaga wareysan karto waxaan filayaa inaad ka faa'iiday adigana waxaan ka rajeynayaa inaad isticmaasho oo ku darsato marka ereyada iyo phraseska aad isticmaasho marka aad luqadda Ingiriisiga ku hadlayso. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa inoo casharka xiga fi amaanillah.